ciidamada kala duwan ee loogu talagalay inay ka qayb galaan xuska maalinta qaran ee 18 May ayaa maanta magaalada Hargeysa ku soo bandhigay gaadaka ciyaar iyo diyaargarow xoogan oo ay ugu jiraan xuska maalintii lagu dhawaaqay Somaliland oo ay ka soo wareegtay 33 sanadood waxaana ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha warfaafinta diinta iyo awqaafta waxbarashada wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada barasaabka gobolka Maroodijeex taliyayaasha ciidamada kala duwan iyo mas'uuliyiin kale waxaana gaadaka ciyaarkan soo bandhigay ciidamada qaranka